gudoomiyaha golaha wakiilada, gudoomiye ku-xigeenka koowaad, xubnaha golaha wakiilada, saxaafadda iyo inta kale halka joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waxay ii tahay farxad inaan isugu nimaano kulankan qadada ah oo ay tahay inaan iniga mahad celiyo shaqadii adkayd muddadii u dambeysay tan iyo maalintiina la dhaariyay aad ku jirteen oo runtii ah tallaabo mudan in la bogaadiyo haddii ahaan lahayd doorashadii gudihiinna oo guddoonka aad ku doorateen iyo doorashadii maalintii 8 dhacday ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aad ku doorateen sidii deganaanta iyo habsamida lahayd ee u socotay guddiyadii maamulayay doorashooyinka iyo dhammaan howlwadeennada baarlamaanka oo xogayihii iyo ragga kale la shaqeynaya ay nala joogaan dhammaantiin hadal badan uma holan munaasabadan waxay ahayd inaan inii mahad celiyo isu wada mahad celinno shaqadaas qorxoon ee soo qabsoontay waxaan sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayaa muddo xileedka noo bilowday inaan si wanaagsan u wada shaqayno oo ugu shaqayno sida ummaddan danteeda maslaxadeeda ku jirto dhaarta dastuuriga waxaa ku jirta sida danta dalka iyo dadku ay ku jirto taas ayaa waxay noo tahay ballan ragga baarlamaanka hore ku jiri jiray in yar baa ka joogta bannaanka wixii la rabo ha laga sheegay laakiin waad ogaan doontaan 5 sano shaqada baarlamaanka ani maalinna ma faragelin ajando uma dirin ajando socdo ma dhexgelin taariikhdana way sheegi doontaa ragga xogaalkana way ogaan doonaan bannaanka wixii la doono ha laga sheego idinkuna waad ogaan doontaan waana waraysan doontaan maanta intii aad campaign ku jiray haddaan idhihi lahaa wax kale aan lahayn laakiin maanta waad ogaan kartaan haddana waxaan ku faraxsanahay runtii baarlamaan mas-uul ah oo akhyaar ah oo xogogaal ah oo runtii mas-uuliyiin kala duwan mas-uuliyado kala duwan soo hayay ayay yihiin maanta ragga halka fadhiya iyo gabdhaha fadhiyaba runtii waxaan ku faraxsanahay dadka soo galay siday isugu dheelitiran yihiin hadday tahay cimriga oo dhalinyaro meel dhexaad odayaal iyo hadday tahay khibradaha kala duwan oo qof walba gaarka uu leeyahay intaasba waxayna dhaxalsiin doontaa wakhtiga adag ee nagu soo fool leh inaad ka gudbin kartaan bulshada Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed insha Allah muddadan kooban على مساركي wuxuu noqon doonaa 23 bisha awal 22 qorsho ahaa inta ka horta ka dhiman xilligaas waxaan inta badan xoog saari doonaa inaan bulshada qeybaheeda kala duwan aan aragno wixii wax tabanaya aan aragno ummadda aan isu soo jiidno marka xafladaha noo dhamaadaan kadib ayaan waxaan wada tashiga dawlad dhiska u deysan doonaa hadii ilaahay inta ka horeysa waxay ahaanaysaa inaan maaragtay bulshada aan dheerno shaqadeena waxay bilaaban doontaa idinka oo runtii mudnaanta leh sida dawladdu u ekaanayso iyo qorshaheeda tashigiina leh waxaan rajaynaynaa marka ay xafladaha naga dhamaadaan oo wufuud fara badan baan rajaynaynaa oo heer federaal iyo heer state iyo safaaradaha iyo dawladaha dariska noo ah inta imaan karto dhan inay ka soo qayb gasho waxaan rabnaa inay makaanada Puntland ay leedahay mar labaad aan muujino iyo culayska ay leedahay oo Soomaaliya halka isugu timaado fursadaas aan hadda ka wada shaqeynayna sida aan dadka u gaari lahayn marka noola imaanayana bulsho wada jirta oo meel wada socota inaan ahaanaan ka shaqeynaya inta ka dhiman muddadaas insha Allah hawsha ugu badan oo hadda aan waqti gelin doono taas weeye haddii aan lahayd musharaxiintii haddii aan lahayd ismadii haddii aan lahayd باليه وحتبناي هدي على شخصيات أما أنا وحاجة تبناي أما يدينك وحاجة تبناي يدينك روح عدي الركبة ترتل لك الشارع أنت ويراس وضع رجال رجينا يا يو إرادة جبيش كاس هلا يوجد مرحلة ده هلا يوجد وأم بلابي أنت بدن وأنت أصلاً مشغول سنة هاي إن شاء الله شغلة يوم مهم سنة أهم دونته أنت صدق لا تنكل جاري هدي لا إنه shaqo dawladeed way iska socoto wasiirada ku filan wixii shaqo socday
laakiin shaqadeeda rasmiga ah ilaa 23 xoogeedu waxay ahaan lahaayeen dadka wax tabanaya inaan arko hadda idinku cid ku ogtihiinna waa ii keeni kartaan ciddii wax tabanaysa iyadana intaasaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahayno markaa kadibna insha allah howlaha dalka noo yaalla ayaan ka shaqayn doonaa idinkana insha allah dee idinka iyo guddoonkiina iyo waxaan rajaynayaa inaad maaragtay shaqooyinka inii yaalla idinku aad qorshaysan doontaan hadal badan maanta muhiim ma aha intaasaan anigu ku soo koobayaa laakiin inaan iska fadhino iska sheekaysano waxba diidi mayso muddo xoogaaya